sida baayirta geelo bilintay qatanay biyaan afka saarino bogdheerow dayaraado barka leelka habeenkii ilaa waa barigii boolal bowda la haysa sideedan balalooyin iyo bulhamooyin qabaayo bogsan maayay laayood barbarkayga timaade alla beer nugliday walaalayana baanaya allaale صاحبيال aad baan idin salaamay saaka waxaan idin soo salaamayaa xero kamida xerooyinka geela ee Hargeysa u dhow taas oo ugu yaraan 10 kiiloomitir ilaa 15 kiiloomitir Hargeysa u jirta hadda waan soo lugo'nayo geeli ma joogo xeradiisii oo idinka arkaya dargeer yar oo naqan baro u tag hirig ama kuwa ugu yar yar dhashay lilgahaasaan ugu tagtagnay markaa meesha ilaahay ku ridmaayo كايمك هذا كل توري راح كنا مشكلة كده ناس كسوق قديم دونا سيب كيجا ساك هذا حماضي هذا نو علي نكيرنا هذا يرى الله يرحمه ساكون صور راعي سوي مقالة دونا قال صوب حي سو ماركتي يعني كير صوتهم لكن نسيب كيسة هذا حماضي سو عن طنطا هالكنو يمدي وكان نسيب كيسة هذا حماضي هذا ناد بنو حماي تلا كود مايو كيش الله صاحبي راسك الصعود دونا نو إلى هذا شوفنا أد بقرح بدين كستعد عايز كي جتنا نسبة الحين بعد عيد بين قدرتها لكن أد بقرح بدين شوفه دورك صاحبي صاحبي مركي أنا صار لقى أنا كدي يعني عاني كده سويني هل كان كمان بيدي رتبة كويسة هيبت مركا هل كان كمان بيدي رتبة كويسة لا إلى كيد ما يسمعنا الحين دي مش قدرت كيلو تنتهي إلى حيرته وهذا هالكلام تشوفنا وطعم بالله هذا وتولى لا يرى كيسان وفلا يا لميتي كل مقالة وان يسوي تبيدون أيوة كسوة تبيدون دور مقالة هذا قرح بدن عبار يرفعين أو نسكن صندوقنا ماشي اسمع الحين بإله اللي بالك هذا يوحول بقى نكين روا إن خبروا يعني خبرنا وكاسوا أبيه نكنا برا لنا سجنا سيجال كعبار بانو هالكم كنا صندوقنا دويل حيراحو صاحبيال ولي waxaan dhex warwareegaya magaaladii Reetaan looranay hadda roob baan soo hayba ma sha Allah imakarkii ila socday oo dhameel baan kaga imaaday waxaan u sheegay inaan soo yara warwareegiyo adeer roobkooda ka arkay oo filaya dhamaantiina halkan wax ku yaalo masaajidkaas soo yaray doona hadii furin hayo hadii kale gudaha geli doona hadii xataa suurta gari weyso xagaana buur bay xigto buurtaas tigi doona anigu la buurta intaan xaga sare ka koro ayaa waxa sameyn doona magaalada fiyugeedaan eegi doona hadii ilaahay raahdo yaa war saaxiibay albriyahan anigu ma safrin laakiin saaka wax ma soo baxay kaliya tan soo caana doonto markii daba ayaa naftu iga qabatay inaan wax soo duubo dabadeedna asoo tibiyo toon marka inta laga yimaado waxa filayaa qaar badan oo kamid ah in aydan toon si fiican garanin toon Hargeysa waxay ka xigtaa dhinaca bari bay ka xigtaa bari sidoo kale waxay u jirtaa ugu yaraan 15 kiiloomitir ama 10 kiiloomitir oo fiiya sidaas hadda neecawdi roobka soo haysaba buurtiga ayaa masaajid diiraha wanaga ka imaaday oo uu xiran yahay sheegina marka saaxiibayaal buurtan baan xagga sare u kori doonaa kadibna waxaan eegi doonaa magaalada iyo fiyugeedu sida yar uu qurux badan yahay meel waliba tay waxba ku fiican tahay Soomaa marka magaaladan yar fiyugeeda ayaan eegi doonaa magaaladan waa magaalo ciida kala iskale oo maanta ciida kala xaqadeynaya ma fahamti laakiin ciida kala wada kartan badan baa loo jiriyay ciidaba noomay soo bixin yaa
saaxiibayaal halkan garan maayo waxay tahay laakiin waan eegi doonaa taangiin baan arkayaa waxaan filayaa inay yahay wax dhulka iyo dhulka keemanayeen yihiin noocay fahmi maayo laakiin bal waan eegi doonaa saaxiibayaal waxaa la yidhi mataqaanaa looma dhawaado meelaha qaar kasoo daraaddeed tawba dhaafay waa ka fogaanaya anigu saaxiibayaal haddeer waxaan saaranahay horta halkii ugu sarraysay tuuladii ridweyne kaarkay xaggay eegto waxaa ka dhacaysa dabayl aan inaba caadi ahayn bayaanan idin xiijinaynin inayaabay dadkii channelkaad iga daawanaysaa waa Kaysar Vlogs waree kaamaradii baaba iga roobaystay hada yaa ajooyigu macaana waaba heer kale oo madadaalaha صاحبي هذا يركض بونص واحد meesha dhaxan saayid ka dhacay buurtii ma garanaysa marka inamada ila socday baa waxay dalbadeen inaan buurtii ku celiyo deeymaka waxa noqday tourism yani waan dalxiis keenaya iyaga soo tusaya ma maqasheen wala sahamiya meesha wala sahamiya kadib ayaa maxaa la yiraahdaa ay la tagaa marka waan soo sahamiyay waxa soo helay meel yar oo loo dalxiis karo kadib baan dib u kaxaynaya xirtii inay biyo waxay dalbadeen inay buurtii tagaan أنا هذا الصيوة حقاوي كده أنا كسر رافضة يا بس كنتيج كائن حقاوي حيرجيني يا بورتها صغيرة صارية كده بورتها مركز صغيرة كان بريونا صاحبي هذا waxaan joognaa iskuulka toon magaalada in la yiraahdo toon iskuulkeedii baan joognaa oo waa kan iskuulkeedu hadii la koobid maayo xagga kalena waxa ku taala xanaanadii toon taasi waa xanaanadii horta weyn ku dambeeyay iskuulka gudaha weerargeliyay meel baan ka soo dhacay hadii xabad la igu qabtana wadi la socon doonta ninkaas waxba muu sameeyay badan doontaan abaandeen
markaan eegaya waxa la yidhi meel aanad garanayn si dhuuban baa loo maraa ma garatay markaa si ballaaran baan u maraya bal ilaahay sahlay anyway waa kan iskuulku inuu xidhan yahay baan filayaa ma garatay wallaahi haa wuu xidhan yahay saaxiibayaal iskuulku wuu xidhan yahay laakiin xanaanadaan tegi doonaa waanu ka soo baxnay laakiin xanaanaduna sidoo kale way xidhan tahay waxaan u malaynayaa meeshan dad badan xanuunsanaya inayna joogin hilib geela halkan la cunaa ma fahanteen salaamu calaykum iska warrama maasha allah markaa saaxiibayaal waxaa filaya inaysan joogin meeshan dad badan xanuunsada hilib geel baa halka la isla dhacaa ma garatay imka haddeer waanu ka soo dhammaan doonaa tuulada insha allah intan in ka badan ma sii joogi karne yaanaan ku sii fogaan Shabelle ha, kat ka soda dale, nunca vaya.